soo noqod wacan. Darsigan waa darsigeennii koowaad ee taxanaha aasaaska nashqadeynta. Waxaan ka cudur daaranayaa ereyada qaar ee Ingiriiska ah oo aan u waayay af Soomaali saxan oo la isku raacsan yahay, balse waxaan aaminsanahay inaad sidooda ku fahmi doontaan. Aan gudaha u galo casharkeena. Ka soo qaad waxaad tixgelinaysaa inaad barato graphic design, waxaadna rabtaa inaad wax badan ka barato. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan ka wada niqaashno waxa uu yahay graphic design. Inta badan dhalinyarada iyo dadka ka fekeraya barashada nashqadeynta oo raba inay ogaadaan waxay isweydiinayaan waa maxay nashqadeynta iyo haddii ay iyaga ku habboon tahay. Su-aashan waxaan marar badan u arkay inay tahay su-aal aad u adag maadaama aysan run ahaantii lahayn jawaab fudud, iyadoo oo aan la helin wax sharaxaad dheeraad ah. Hadda haddii aad Google garayso oo aad dhahdo waa maxay graphic design, wuxuu kuugu jawaabi doonaa in nashqadeynta graphic ay tahay farshaxan ama xirfad isku darka qoraalka iyo sawirada xayeysiisyada majalladaha ama buugaagta loo isticmaalo. Inkasta oo aan u maleynayo inay jiraan wax ka badan taas, muuqaalkan waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabo su-aashan oo aan ku siiyo fikradda aan ka helay waayo aragnimadeeda. Haddaba waa maxay nashqadeynta grafiyada ama graphic design waa maxay? Hagaag aynu si fudud ku bilowno. Waxaan haysanaa laba shay, graphic iyo design. Graphic ama graafka waxaan leenahay waa wax muuqda kaas oo la xiriira artistka ama malawaalka iyo wax kasta oo la sawiro. Sidaa daraaddeed qaybta graafka ee nashqadeynta grafiyada waxay ka kooban tahay waxyaabo muuqaal ah hadba sida ay isugu xirxiran yihiin qaybaha graphic design. Waxyaabaha asaasiga ah ee muuqaalka ah ee isku dhafan si ay u abuuraan nashqad sawireed waxaa ka mid ah qodobada soo socda: line, color, shape, texture, form iyo typography. Waxaan dooranaa visual elements si aan u habeeno oogada sare ee qaab dhismeedka si aan u gudbino fikrad. Qaybta xigta waa design, kaas oo aan ku go'aaminayno qaabka uu u muuqan lahaa inta aanan sameynin. Sidaa daraaddeed designka waa fikir, problem solving iyo qayb theory ah. Markii la joogo graphic design waxaa jira xeerar loo tixgeliyo. Xeerarkan waxaa loo yaqaanaa the principle of design. Marka principle of design kan waa kuwa xiriir la leh midba midka kale, waxaana laga arki karaa design kasta oo la sameeyo. Design principle waxay designka ka dhigaan wax aad u fiican, halka design theory uu micno u yeelo ama u cadeynayo inay jiraan wax ka dambeeya shaqada aad qabatay ama designka aad samaysay. Waxaa jira wax la yiraahdo the key principle of design, waxayna kala yihiin contrast, hierarchy, alignment, balance, proximity, repetition, simplicity iyo function. Markaan isku geyno visual elementska iyo design principle waxaa inoo soo baxaya graphic design. Marka waxaa dhihi karnaa graphic design ma ahan in drawing la sameeyo, sidoo kale painting ma aha ama coloring. Graphic design kaliya ma aha in la sameeyo poster ama logo degdeg ah lagu sameeyo. Waxyaabahan waxay la micno tahay xirfadaha iyo dhammaadka shaqada uu qabto qofkaas. Graphic design ma ahan kaliya in la sameeyo waxyaabo u muuqdo qurux. Graphic design waa organize in la sameeyo iyo in la soo jeediyo xog la hormariyay iyada loo marayo creative process. Shaqooyinka qaar ee graphic design waxaa waajib nagu ah inaan fahanno informationka ama xogta, messageka iyo briefka ama documentiga uu qofkaas wato. Kadibna aan research sameyno. Inta aadan gudagelin waxaad sameysaa fikir ama inaad fikirto isku day, qiyaasid sameey, kadibna hormari. Sidoo kalena waxaad sameysaa xogta lagu keenay xalkeeda si la iskula xiriiriyo xogta lagu keenay ama sheekada lagu sheegay ama fariinta lagula wadaagay oo aad u bedesho wax muuqda. Kaliya hal mar ayaan haysanaa xog qalalan, taas oo loo bedelayo ama la horumarinayo design process. Waxaan isticmaalaynaa xirfadeena iyadoo lagu lamaaniyo layout, color, typography iyo tools hal abuur leh si aan uga dhigno fikirka wax jira oo muuqda. Xilli hore taasi waxay ahaan jirtay mid la kaashanayo qalin ama brush iyo warqad oo kaliya. Maanta waa intaas oo dhan iyo in ka badan. Maanta waxaan haysanaa kaamirooyin, kombiyuutaro iyo printers. Tan iyo markii la alifay madbacadaha ama printerska, kuwaas oo awood u leh in uu soo saaro waxyaabihii la design gareeyay. Graphic design ayaa loo isticmaalaa in lagu wada xiriiro laguna faafiyo fariimaha caalamka si looga faa'iideysto horumarinta tiknoolajiyadda. Maanta waxaa inagu xeeran isgaarsiino badan oo visual communication ah. Graphic design maanta waxaa laga isticmaalaa meel walba oo dunida ka mid ah. Shaqooyinka qaar
ee kamid ah graphic design waxaa kamid ah meediyaha in laga shaqeeyo madbacadaha sida xayeysiisyada looga sameynto kale web design-ka kale interface design-ka oo journalada iyo packaging-ka TV-yada motion graphics-ka waa waxyaabaha hoos imaanaya shaqooyinka graphic design. haddii aad danaynayso in aad la sii socoto shaqooyinka graphic design waxaa hubaal ah in aad ku dambeyn doonto shaqo abuur ka mid ah qaybahaas muddo 10 sano ah. waagii hore nashqadeynta garaafyada ayaa qaabaysay dhaqanka iyada oo loo marayo fanka fansiyaasadeedka iyo farshaxan ganacsi. maanta graphic design-ka waxa uu leeyahay fursad ganacsi oo weyn. waxay si weyn ugu xiran tahay ganacsiga oo loo isticmaalo in wax lagu iibiyo oo la xayeysiiyo, laakiin intaas kuma koobno. waxaan aaminsanahay in nashqadeynta grafika ay tahay midnimada labada quwadood iska soo horjeeda ee kala ah theory-ga aad baratay iyo design thinking oo aad ku dabaqday hab practical ah. marka aad awood u yeelatay inaad labadan cilmi si wadajir ah ku wada xiriirisid, marka waxaad abuuri kartaa design cajiib ah. intaani waa hordhac waxa uu yahay nashqadeynta grafyada waxa graphic design la dhaho. waxaan rajeynayaa in wax uu ka caawiyay inta aan soo sharxay. haddii aan dib ku xusuusiyo muuqaalkan, waxaan ku xusay in nashqadeynta grafyada ama graphic design-ka uu ka samaysan yahay visual elements iyo design principle. casharada 7 qaybood ee soo socda waxaan aad uga hadli doonaa aragtida nashqadeynta oo aan si faahfaahsan uga hadli doono visual elements, kaas oo ka dhigan in qayb ka mid ah graphic design-ka aan ka wada shaqeynay. fiidiyoga soo socda waxaan ka bilaabayaa inaan ka hadlo line-ka ama sadar oo ka mid ah visual element markii la joogo graphic design. waa inoo muuqaalka xiga insha Allah. wixii su'aal ah commentiga noogu reeb. mahadsanidin.